First of all, allow me to thank President Mohamed Abdi Ware and the people of Hirshabeele for their hospitality and the warm welcome that I and my delegation received during this visit. It's a true pleasure to visit Somalia's newest federal member state, and I must say I'm very impressed by the progress that this state has been able to achieve in just a few years. We had encouraging and fruitful talks with President Ware and his cabinet on a wide range of issues, including the need to strengthen the state-building process in Somalia. We particularly agreed that good relations between the federal government of Somalia and the federal member states are crucial to continued progress for the people of Somalia. We are looking forward to increasing our cooperation with the people and government of Hirshabeele to implement the UNSOM mandate and also to ensure that the activities of the entire UN family are having good effect here in Hirshabeele. And I appreciated hearing some solid advice from the President as to how we can do that yet better. The UN family is involved in a wide variety of activities here in Hirshabeele, covering development of institutional capacity, provision of humanitarian assistance, facilitation of political reconciliation and mediation, as well as security sector reform and infrastructure development. On this visit, I'm also particularly concerned about the humanitarian situation in view of the current food security crisis, which affects about 1/4 of Hirshabeele's population. I was accompanied today by representatives of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and also the Office of the High Commissioner for Refugees, so that we could discuss with President Ware's cabinet members the humanitarian needs in detail and also how we're responding. So with that, again, I want to express my sincere thanks for a warm welcome here in Hirshabeele. I look forward to close collaboration with the people and leaders of Hirshabeele throughout my tenure. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waxaan maanta ku faraxsanahay inuu noo yimid wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaranadda midoobay mudane James Swan oo runtii safarkiisii ugu horeeyay ku yimid dawlad goboleedka Hirshabeelle. Mr. Swan waa nin runtii aad looga yaqaan Soomaaliya, aanan aaminsanahay inuu wax badan ku soo biiri doono talada iyo wanaagga iyo horumarka iyo amniga Soomaaliya. Muddadii gaabneed oo aan wada joognay waxaan ka wada hadalnay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin ay ugu muhiimsan tahay sidii wax looga qaban lahaa barnaamijyada xaaladaha amniga ku wajahan, ha ahaadaan abaaraha, ha ahaadaan fatahaadaha, iyadoo aan muxuu ahay runtii aan hoosta ka xareernay baahida loo qabo in qayb laga qaato UN-tuna ay horseed u noqoto wada hadallo lala galo muxuu ahay dawladda Andriskana Ethiopia iyadoo loo marayo dawladda federaalka si meel la isula dhigi lahaa xaaladda fatahaadda iyo maamulka webiga. Arrimaha siyaasadda waxaan runtii isla qeexnay islana garanay in wada hadal iyo wada shaqayn ay yeeshaan dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ay tahay jidka kaliya oo lagu gaari karo xal waara arrimaha hor yaalla oo ay ka mid yihiin amniga, oo ay ka mid yihiin doorashooyinka, oo ay ka mid yihiin muxuu ahay kheyraad qaybsiga iyo arrimaha lamida. waa u sheegnay Hirshabeelle in xiriir fiican dawladda ay la leedahay loona baahan yahay in xiriirkaas la sii wanaajiyo wax badan oo taagan wax laga qabto. runtii waxaan rajaynaynaa bahda qaramada midoobay oo Hirshabeelle joogta hoggaanka Mr. Swan inay wax badan ku soo kordhi doonaan horumarka iyo amniga iyo baraaraha shacabka Soomaaliya iyo shacabka dawlad goboleedka Hirshabeelle. mudane Swan ku soo dhaw Soomaaliya aadaan ugu faraxsanahay imaatinkaada waxaan rajaynaynaa wada shaqayn wanaagsan inaan la yeelano xafiiskaada iyo tiimkaada. aad u mahadsantiin.